ilkaase cabdulaahi ilkaase kusoo dhawo gudow وما صنتها على القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما أنت قربت محل ماشي سكون نمت قدرنا هاي لأن يردا مباسة يوتك أو كنا قدرنا هاي ماشي محل سكون نمت أنا قحون أرمها يو أبارها كديرة إستن يعني إست أفريقيا خاصة صوماليا إن أبارها نادرة. أرنتاس كذا قني إن رمباسنا حوشيجيا إن أرنتاس أرنتاس أروح النهاي الدويرة هي راهو أول مدوبو أو الإسكي مادو وضد كوالينا عن جرجانو أو حقبانو هي يعني روح البوح اللي كرو حتى بقولش إن الله بقولش إنه بحصتي ولكن أو بحصتي وواحد آخرنا وحيكون قنصة أدينا وتقول لي بني أنا وحنا كسوق بيني أرنتنا عسى أنا وكهذه أفكار أنا يرى جزء مباسة قدومية أنا وكهذه وحنا هاي ولا ريال أنا يرى همينه وحنا تذكرنا على كلمية وحنا هالوقفته هل ساعديه وما سنتين. waxaan u taaganahay oo mataleena waa umadaanada waxa baaba'aya abaaraha ku baaba'ayna waa umadaanada ahaantii qof walba oo caaw joogo uu is og yahay inuu gurigiisa saaki ka soo tagay asagoo nabad qabo qurac fiican soo qaaday laakiin mis weydiisay saaki meeqa qof gaajo u dhimay badbaadin ilaaha wax badbaadiyo aan jawaab degdeg ka bixino kama seexan doono insha Allah waxaan baaq u dirayaa ganacsatada ilaahay dadku wax siyo dhan aan arintaas u istaana boqolkaas walaalka uu badbaadi walaalkaaga kuna badbaadi boqolkaas aad bixinaysa ama halka dollar aad bixinaysa si ilaahay adigna maalinta xasanaadkaada aakhiro uu ilaaha kugu badiyo xasanaadkaaga aadna u noqoto mid ubadkiisa ilaaha u barbaariyo oo una badbaadiyo una barakeeyo hantidaadana barake ay ku yeelan doontaa boqolkaaga wax weyn buu qabtaa hayasin waxweyn buu dadka soo qaban karaa insha Allah aan u istaagno umadaanada aad baan u faraxsanahay waan huba Soomaali waa dad aad u damqado laakiin baraarujinta ugu yar insha Allah haddana waxaan ku wareejinaa walaalkayga Imraan oo ku soo dhaweynayaa insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kan ku soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim waarun wax la sheegayo qaastan gudoomiyaha uu ka soo hadlay inaan hadalka dheereena marabno soo kale maxamed uu ka soo hadlay ma sha Allah horta maanta meeshan waxa soo fariisanay dhibka Soomaaliya ka jiro inaan ka hadalno waa maxay dhibka marka dad badan baa maanta dhimanayo maxay u dhinteen abaare u dhinteen marka qaasatan waxaan hadlaynaa ganacsatada ku nool Mombasa in ayaguna walaalahooda oo dhibaataysan oo Soomaali dadka Soomaali ku dhibaataysan inay garab ay siiyaan ilaahay ha ka dhiga hataa 100 shilin waa inaad dhiibtaa 100 shilin maanta intay ku buuxinay waa may marka khaas ahaan wada hadlaynaa anaga Soomaaliyeed maanta runtii wallahi billahi aad baan ugu xumahay horta dadka Soomaali maanta aad dhibaatooyin badan ayaa yaalo walaal qodashana إلهي وحكت وين أخذ وطن كذا إلهي إنه نخاله جيو يا أنا كانوا وانجعلنا هاي ما أنت وطن كانوا وانجعلنا هاي وما يشان وما سو فريسن كل فوت إسفوتي وحس مسو فريسن ما يشان دب ضل كان يال درتي سايان مسو فريسن ولا ليال هذا هل سكتوا من هذا هل سجعلاده ولا لك هذا باهن كفكر يا بري والله بلا مالك وتعالى هذا مالك وتعالى بري أريد هاسا وأنا جاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هذا الكسكو ديرين هذا نحن كوريجنا يا عبد القادر صدق على صاحب كيجا أسم كوريجنا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم هرتا وحي aan dhihi lahayn oo aan soo sheegnay walaaladeyda hore soo sheegeen oo kamid yahay gudoomiyaheena inta kalena walaaladeyda sida Maxamed Aboyero iyo Imraan Yare ayaa ka soo hadleen horta muhiimadda waxa wax maanta intana keenay oo aan magaalada inaan ugu soo baxno oo imaanay waa dhaqansho qofka bini'aadamkana waxaynu nahay dad Soomaaliyeed ka bacdi waxaynu nahay dad Islaam ah oo isku dal ah isku diin ah isku dhaqan ah maanta markii aan aragno walaaladeyna rafaasa markii aragno annagu wayna dhibaysaa waxaynu isbeysaa marka in annaga wax aan qaban karno aan qabanno wixii aan awoodno aan suubino
maasha allah horta waxaa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed haddaynu hay gaar ahaan kuwa ku nool Mombasa waa u wada istaagnay qof walba waxaan arkay program dad badan waxyaabo badan dhalinyaro soo bandhigeen laakiin muhiimaddu waxaa waaye waxa loo baahan actionkiya loo baahan waxa naga maqan actionkiya naga maqan waan soo raacnaa waa hadalnaa waa ka hadalnaa meel walbo laakiin actionkiya loo baahan yahay dadkan hadda maanta rafaadsan bay dhibaatada ay ka jirto ee Soomaalida ah ee walaaladeenna dhibaatada ugu badan waxa waaye waa abaaro koos waxaan leenahay dawlad oo hadda inoo curatay dawladihii hore ka bedelan Soomaalida dhan ay ku midoobeen laakiin maanta dawladda ma awoodo in ay kulli abaarahaas oo dhan ay qaabisho ay wax ka qabato laakiin yaa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay kuwa walaaladeenna sida annagoo kale ee magaalada Soomaaliya banaanka ka ah ee qurbaha ku nool inay isbiirsadaan in ay 10 shilin 20 shilin 100 shilin ay wax ku cunayaan in ay walaalkooda u quraan ay ku kaalmayaan waa aragteen oo maleeyaa xoolihii waa dhamaaday Soomaaliya hadda xoolo ku haray malahan badbaadi walaalkaaga dhibaataysan halkaaga $.